weligaa miyaad la yaabtay sababta jirka bini'aadinka uu ugu baahan yahay hurdada? maxaanu u dareennaa deganaan iyo farxad marka aynu hurudno? maxaynu u seexan weynaa markay wax adag nolosha inagu dhacaan? haddii aad horay u aqoonin, maanta ayaad baran doontaa saaxiibkeed. laakiin marka hore aan kaaga waramo sheekada Randy Gardner iyo khibradiisa. Randy Gardner oo ah arday wax ka barto dugsiga sare ee San Diego ee ku yaal California, wuxuu hurday 11 maalmood iyo 28 daqiiqo. sidoo kale wuxuu gaaray rikoor ah inuusan seexan ilaa 264 saacadood. intii tijaabadan lagu guda jiray, wuxuu lahaa dhaqaatiir tiro badan iyo cilmi baarayaal ku takhasusay hurdada dabiiciga ah. waxayna duuwayeen isbedelada dareenka ku dhacay maskaxda Randy, sababtoo ah wuxuu ka fogaaday hurdada. 2 maalmood oo tijaabo ah kadib, Randy wuxuu bilaabay in uu shigshigo uuna ku soo celceliyo hal eray dhowr jeer. dareenkiisa taabashadana wuxuu bilaabay inuu si tartiib tartiib ah u daciifo. maalinta shanaadna wuxuu bilaabay inuu wax walba ilaawo, xusuustiisana ay daciifto. ma uusan lahayn awood uu ku xasuusto dhacdooyinka fudud kuwaasoo uu soo maray. Randy wuxuu iska caabinayaa kana hortagaya maskaxdiisa iyo jirkiisa in ay seexdaan. laakiin dabcan ma jiro qof awood u leh in uu waqti badan soo jeedo. inkastoo uu dhibaatadani oo dhan uu soo maray, laakiin aakhirkii wuu hurday. Randy shakhsi ahaan noloshiisa oo dhan way baaba'day. daraasadaas kadib, waa run in uu gaaray rikoor oo guulaystay, laakiin tani waxay si xun u baabi'isay noloshiisa. mana soo jeedi karo, hurdo joogto ahna ma helo, hawshiisuna way carqaladeysay. dhibaatooyinkan maalmo ama bilo ma hayn, laakiin waa sanado badan. xaqiiqdii, qaar badan oo inaga mid ah waxay u arkaan hurdadu waqti lumis, sababtoo ah waxay leeyihiin inta lagu guda jiro hurdadu mana cunno, mana cabno, mana shaqeyno. qofka wuxuu bixiyaa 36% noloshiisa wuuna seexdaa. Thomas Edison wuxuu caan ku ahaa oraah oranayso, hurdadu waa waqti lumis, faa'iidana ma lahan. laakiin tani ma runbaa? hurdadu ma waqti lumis baa? ka hor intaanan ka jawaabin su'aashan, aan idin siiyo tusaale fudud. ka waran haddaan kuu sheego in aan sameeyo kiimiko oo daawo ahay, waxaana kuu ogolahay in aad iga iibsato. daawadani waxay si weyn u xoojin doontaa xasuustaada, wayna ilaalin doontaa. waxay kaa dhigi doontaa inaad ku fiicnaato dadka hortooda, waxayna kaa ilaalin doontaa hargabka, kansarka. sidoo kalena waxay yareyn doontaa halista cudurka maskaxda iyo wadna istaaga. waxayna kaa ilaalin doontaa sokorowga, waxayna kaa dhigi doontaa mid faraxsan, waxayna kaa fogeynaysaa niyadjabka. maxaad u malaynaysaa saaxiibkaygiiow iibsashadeeda? xaqiiqdii, qof kasta oo caaqil ahi kama labalabeynayo iibsashada daawadani daqiiqad xitaa. haddii loo baahdo si uu u helo daawadani, wuxuu iibinayaa wax walba uu haysto si uu u helo daawadan. laakiin maxaa dhacayo haddii aan kuu sheego in ay daawadani mar walba diyaar tahay? qof kasta waa u bilaash. waxa keliya inuu sameeyo ay tahay waa inuu hurdo 7 ilaa 9 saacadood maalin kasta si joogto ah, meel degan, uuna ka fogaado buuq iyo fikir oo dhan. oo waxaad yeelan doontaa dhammaan waxa faa'iidooyin aan horay u soo sheegay adigoo aan bixin wax lacag ah. hurdadu, daawadaha qaaliga ahow, aad iyo aad ayay muhiim ugu tahay nolosheena, iyo wax walba oo nolosheena ka mid ah gabi ahaanba way ku tiirsan yihiin. laakiin tani macnaheedu ma ahan dabcan inaad seexatid ilaa duhurkii ama aad seexato 15 saacadood. iskana ilowdo inaad ka shaqeyso himilooyinkaaga.